dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wadahadal aad u horumarsan waxa ay kula jirtaa dhigeeda Pakistan kaas oo ay ku doonayso in dowladda Pakistan kaga soo iibsato 24 diyaaradood oo ah nooca casriga ah ee GF-17 Thunder Block 3 sida ay qortay jasiiradda Times of Islamabad. Talaabadan ayaa lagu sifeeyay mid ka mid ah go'aanadii ugu saameynta badnaa ee Soomaaliya qaado tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee 1991 iyadoo doonaysa inay dib u soo celiso maqaamkeedii military ee gobolka Geeska Afrika. Wadahadalladan ayaa helay tixgelin heer sare ah kadib markii magaalada Islamabad uu booqasho rasmi ah ku tagay wafdi military uu hogaaminayo taliyaha ciidanka cirka Soomaaliya General Maxamuud Sheekh Cali Dable Baylod. ilaa warbixintu xiganayso waxay tilmaamayaan in heshiiskan uusan ahayn oo kaliya iibsi diyaaradeed balse uu yahay iskaashi istiraatiijiyad ballaaran leh. diyaaradda GF-17 Block 3 oo ay wada soo saaraan dowladaha Pakistan iyo Shiinaha ayaa ah nooca ugu dambeeyay ee diyaaradahaas 4.5 generation iyadoo ku qalabaysan tiknoolajiyadda raadarka ee la yiraahdo ESA iyo sidoo kale gantaalada ridada dheer taas oo Soomaaliya u saalaysa inay si hufan u ilaaliso xuduudaheeda badda iyo bariga sida uu qoray bogga Defense Security Asia. dowladda Soomaaliya waxay dooratay diyaaradan sababtoo ah waa mid la awoodi karo oo casri ah isla markaana ku habboon baahiyaha ammaan ee hadda jira. qiimaha hal diyaarad ayaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa $25 milyan ilaa $30 milyan Mareykanka taasoo aad uga jaban diyaaradaha reer galbeedka balse bixisa awood military oo dhigma. si kastaba xogtan ayaa xaqiijinaysa in heshiiskan uu qayb ka yahay qorshe weyn oo lagu dhisayo ciidanka qaranka iyadoo la kaashanayo saaxiibada sida Pakistan, Sacuudiga iyo Turkiga. marka la dhameystiro 24 diyaaradood ee GF-17 waxay Soomaaliya ka dhigi doonaan mid ka mid ah quwadaha ugu waaweyn ee dhinaca hawada ee bariga Afrika taas oo furo u ah xasiloonida muddada dheer iyo la dagaalanka kooxaha nabadiidka. dhinaca kale kadib saacado markii warbixintu ay soo baxday Soomaaliya ayaa heshiis iskaashi military la saxiixatay boqortooyada Sacuudiga si ay uga garab siiso dhismaha ciidanka iyo agabkooda. Sacuudigu waxa uu dhowaan diyaaradahan u iibiyay dalka Suudaan waxaana la filayaa inuu heshiiskaas mid la mid ah hadda Soomaaliya miiska uu saaran yahay. diyaaradda GF-17 Thunder waa diyaarado dagaal oo casri ah kuwaas oo loo adeegsado howlgallo kala duwan oo isugu jira difaac iyo weerar. nooca diyaaradahan waxaa haatan Afrika ka isticmaala oo kaliya dowladda Nigeria taasoo ka dhigaysa Soomaaliya haddii ay hesho dal kale oo Afrikaan ah oo ku biira isticmaalka diyaaradan. sidoo kale wararku waxa ay tibaaxayaan in qorshaha dhamaystirka heshiiskan iyo hirgelintiisa ay goobjoog ka noqon doonaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan si loo muujiyo muhiimadda siyaasadeed iyo midda istiraatiiji ee iskaashigan. haddii heshiiskan hirgalo waxaa la filayaa in uu wax weyn ka bedelo awoodda difaaca cirka Soomaaliya isla markaana uu kor u qaado iskaashiga military ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya, Sacuudi Carabiya iyo Pakistan. dowladda Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad u adag oo ay u baahan tahay gacan khaasatan iyadoo la og yahay dowladda marka laga fiiriyo inuu nuglaansho hay-adaheeda amniga uu ku jiro dhisidda hay-adaheeda kala duwan ee dowladduna ay tahay marxalad yacni ay kobcayaan laakiin wax badan ay ka maqan yihiin. marka haddana waxaa bilowday tartan caalami ah oo lagu tartamayo oo nidaamka caalamiga iyo dynamiga ugu socday ayaa isbedelay. markii hore haddii Yurub iyo Asia iyo Mareykanka ay ahayd hadda waxaad moodaa in Afrika loo soo jeestay xaggeeda dhaqaalaha marka laga fiiriyo marinada istiraatiijiga ay leedahay kolka laga fiiriyo waxyaalo fara badan ayaa hadda yani loo soo jeestay. marka Soomaaliyana waxay ku taallaa meel istiraatiiji ah oona meelo fara badan oo maalgashina noqon karta macdan badanna aad loogu tuhmayo oo waliba khaasatan kolkii Turkiga uu bilaabay inuu shidaal qudis iyo waxyaalaha laga yani in la baaro laga bilaabay. waxaasoo dhan mar waxay keentay Soomaaliya inay nuglaansho iyadoo joogto ayaa laba mar oo isku dayo oo xoog badan ayaa dhacay. isku daygii koowaad wuxuu ahaa dowladda Ethiopia aan dariska nahay kolkii ay heshiis la gashay Somaliland oo ay marin biyood ay dalabtay
ilaa iyo hadda maantana marinbiyoodkii iyo duulisteeda kama tanaasulino marka inay xoog ama xeelad inay si un ku heli doontana waa la yiri haddana inaan wada hadal ku raadino ayaa hadda muuqata Soomaaliya marka ay dareentay ciriirigaas waxa ugu horeeyay la xiriirta waxay ahayd dawladda Turkiga ee heshiis badeed la gashay in la ilaaliyo ciidanka Soomaaliya badana dib loo dhiso waxyaalo fara badan la iska kaashado oo waxaad moodaa powerkii iyo saameynta Turkiga iyo xiriirka uu la leeyahay labada dal iyo heshiiskan la galay wax weyn bay dib u dhigtay damicii dawladda Ethiopia marka arrintan kale Israa'iil ay soo gashay mantiqada oo heshiis iyo aqoonsi ay siisay Somaliland iyo cabsida laga qabo saldhigyo inay ka samaysato iyo waxyaalahaas oo kale waxay keentay dawlado badan bay soo kicisay dawladahaas oo marinka degan ama u dhow sida Sacuudiga oo kale iyo dawladda Masar iyo Qatar oo iyaduna walwal ka qabta qadiyadaas marka loolan ayaa meesha ka bilowday Israa'iil oo dhinaca doonaya iyo dadka wixii ku daba daabanba marka in ay xoog saarayaan bal على الأقل inay mowqacaasi u gaaraan marka dawladahan iyagoona Soomaaliya u daneynaynin ayay si xoogana waxa ay rabaan in ay mantiqada Soomaaliya ay noqoto meel dawlad xoogan ama ilaalin karta marka taas ayaa waxay keenaysaa labada dhinac way isku baahan yihiin Soomaaliyana baahida waxay qabtaa maadaama aysan iyadu ilaashan karin awoodeeda kale aysan ahayn inay samaysato dawlado fara badan oo yani heshiisyo ay la gasho marka heshiiskii hadda Sacuudiga ugu dambeeyay la gashay kii Turkiga kii Masar la gashay kuwa ka horeeyay marka intaaba waxay keenaysaa baadigoob in la baadigoobo xulafo garab ka siiya xagga dhinacyo fara badan ka siiya marka waxaan leeyahay faa'iidooyinka waa ku jiraan khatarana way keeni karaan waxay u baahan yihiin in si wanaagsan loo maareeyo waxaa jirta awoodda isku babacdhiganka Soomaaliya waan ognahay waa dal soo kabanaya qoraallo ama shuruucda caalamiga ah ee u diyaarsan way ka liitaan wadamada kale ma kula tahay in awoodda sharci ahaan iyo awoodda xiriir ahaan Soomaaliya way u babacdhigmi kartaa wadamadaas horta waxaa jira hal hadda dariiqi uu qaatay Turkiga oo aad moodo inay wadamadii hadda Sacuudiga iyo Masar ka horeysay iyo kulli ay mareen waxay ahayd dariiqa in Soomaaliya aan ciidanka iyo amniga marka laga kaaninayo aysan wax kor ka yimaada oo toos faragelin aysan u noqon laakiin ujeedada iyada la kaabo lana ilaaliyo wax la yiraahdo madax banaanideeda waxa weeye waa iskaashi amni oo wadaag ku dhisan weeye isla markaasna ay saldhig u tahay in la ilaaliyo madax banaanida dalka sababtoo waxa weeye madax banaanida inaan la ilaalin jihooyin iyaga cagsi ku ah ayaa ka faa'iideysanaya marka midaan waxaan isleeyahay Soomaaliya haddii ay hesho waxyaalaha qaarkood way maareyn kartaa laakiin nuglaansho weyn ayaa jira maxaa ka mid ah waxa weeye inuu isku xir u jiraa hay'ad isku xirta dhammaan heshiisyadaas waa in la helaa heshiiskuna waa inuu cad yahay leeyahayna meelo cas ah oo la gudbi karin xadidan yahayna sidoo kale in la mideeyo tababarada ama almooyinka waxa la yiraahdaa dawladaha kala duwan ay dhiibayaan oo la isku dheelitiraa oo meelo kala duwan qolob kastaba meel lagu